wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay kulan wada tashi ah oo ku saabsanaa dhismaha shuruucda wadooyinka Soomaaliya. Wariyahana Maxamed Xuseen ayaa warbixintan inoo soo diray. wasaaradda gaadiidka ee dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay kulan wada tashi ah oo ku saabsan shuruucda wadooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa. kulankan waxaa ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah gaadiidleyda dalka. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa madasha ka sheegay in sharcigan uu u baahan yahay dhaqangal rasmi ah. dhinaca amniga markaynu ku fiirino horta shuruucdan la qorayo oo wax warqad lagu qorayo warqadda waxa lagu qoran wuxuu u baahan yahay in la xoojiyo ciidanka xoojin lahaa qaban lahaana waa ciidanka booliska lahaanshihii baa inaga maqan waxaan magan uga nahay idinka intii naasoo dhanba inaad nala qaadataan sarreynta sharciga baabuurta aad arkaysaan ee subrakaarikada ama subrabeesada waxaa lagu leeyahay iskaashataasaa u garatay hebel bay ka soo siixeen dhibka uu keenayana ilaahay baa ku cilmadooda aragteen. wasiirka gaadiidka ee dowladda Soomaaliya Maryan Awaas Jaamac ayaa sheegtay in wasaaradaha kale ah gaadiidka iyo duulista hawada ay ka wada shaqeeyeen sharciyada gaadiidka kala duwan iyo sidii looga shaqeyn lahaa. waxaana runtii aan ogahay wasaaradda duulista hawada inay runtii ay dhaqdhaqaaqyo badan ay sameeyeen oo la socdo oo dhowr jeer aan ka wada shaqeynay arrimaha ku saabsan gaadiidka iyo habka wadooyinka loo marayo. marka runtii waxaan isleeyahay waa tallaabo aan isleeyahay muhiimadeedii leh oo ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyadeedii ay saaran tahay. waxaad meesha aad ku arkaysaan qataraha runtii aan arkayno dadkeena isticmaalaya wadooyinka. Maxamed Cabdullaahi Omar, wasiirka wasaaradda gaadiidka dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay in wada tashi badan la marsiiyay sharcigan ka kooban 24 qodob. waxaan galnay wada tashi tiro badan mar alla markaan ku qanacnay la tashiga iyaga aan la tashanay iyo shacabka iyo inta oo khuseeyo stakeholder consultation aan sameynay ayaa waxaan soo saarnay sharci ka kooban 24 qodob ka kooban. shuruucdaasi waxaan gelinay faafinta rasmiga ah waxayna faafinta rasmiga ah ku soo baxday bishii July 2018 consultation badan kadib. shuruucdaasi waxaan isku daynay muddo badan inaan enforcement ku sameyno oo u gudbino booliiska iyo amniga wadooyinka. Maxamed Xuseen Axmed, RTN, Muqdisho.